ama aan idhaahdo ergooyinka gobollada ee shirweynahan maanta ka soo qayb galay waxaan u yeeri doonaa haldoor cabdalle xasan oo ah xubin firfircoon. ugu horeyn waxaan u mahadcelinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo suurtageliyey noloshan quruxda badan inaynu ku kulanno galabta. mahadnaqa ilaahay kadib waxaan iyagana bogaadinayaa hambalyeynayaa dhiirigelin iyo mahadnaqba isugu darayaa dhalinyaradii hawsha quruxda badan iyo kulankan inoo soo qabanqaabisay oo mahadnaq badan inaga mudan hawl aynu wada lahaynna ka shaqaysay waqtigooda iyo hantidooda iyo dadaalkoodana geliyeen sida quruxda badan galabta wada hadalkan isugu yimid iyagana way mahadsantihiin baan leedahay. intaa kadib waxaan salaamayaa dhammaan bulshada halkan ka soo qayb gashay dhalinyaro haween waayeel waxaan si gaar u salaamayaa mas-uuliyiinta jaaliyadda kuwa xisbiyada maxay ahayd ururada waxaan leeyahay dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan doonayaa inaan kelmado kooban ka idhaahdo arrinka jaaliyadda guud ahaan iyo gaar ahaan arrinkan caawa halkan isugu nimee markaynu halkan soo istaagno qof waliba wuxuu isku dayayaa inuu kelmado wanaagsan ku hadlo si qurux badanna dadka ula hadlo laakiin waxaa muhiim ah taasi muhiim ah waxaa muhiim ah qofku waxaan uu ku hadlayo inuu ka dhabeeyo oo ku shaqeeyo oo arrinkan iyo fikradda quruxda badan uu soo jeedinayo uu isagu bilaabo ma aha inuu si qurux badan dee aynu ku wada hadallo oo hadhowna aynu hawlahaynu daalkii ka mayso idinkuna dee qofkii waxaana saxabka ugu tumaysan inay ku taageersantii inaad kula shaqaysaan oo axmed inteennana qolidii haddaynu la shaqayno marka inka xilka mustafa ku wareejiyo waxay noqonaysaa wax qurux badan oo dee magaranaysaa wax badan uu qaban kara isagu laakiin inteennani markaynu guryihii tagmada qaar inaga madi hadday intaynu digsi baastaa karsano cagad weeraysana ku tarsano ilaa waxa xeebo kama jiraan waa arrin foolniyada inta badanna dee kolley dad badan sameeyaan intaas waa inta kolley afartii sano ugu dambeeyey sakariya mudaalix sano iyo afartii sano ugu dambeeyey xoogaa waa arrimaha jaaliyadda xirallo waa ka qabtay labadii sano ugu dambeysay laakiin meel kulan jaaliyadeed ka jiro kamaan qaybgelin manaanti gobollo badanna oo rag badan oo asxaab nahay dee qabanqaabinayeenna waa laga soo casuumay waana laga soo madrasa kala geliy laakiin kamaan qaybgelin sababta laga qaybgeli waana waxa weeye waxaana ku qanacsanay si markaa wax loo waday markaa su-aal baa meesha taagan caawa waxaan markaa halkan u yimi haddaad sidaa ahayd oo muddadaada garanaysa sababtan caawa u yimi halkaa waxa weeye axmed saalax oo wixii wax ka duwan iisoo bandhigay markuu iisoo sheegay arrinkan iyo madashan wareejinta ee garanaysa arrinka ka duwan wuxuu ahaa kolley waxaa jirta jarmalka khilaafad badan oo inta kula soo noqnoqdo jaaliyadaha iyo arrimo noocaas laysku khilaafo khilaafkuna wax iska caadiyo dee wax dhib weyn oo noloshooda kula socdaayo arrimaha maamulka iyo dee magaraysa arrimaha dadku weleeyihin in laysku khilaafayo laga jawaabo in meesha kaga haddaba axmed saalax kolley labada marka khilaafaadka la yidhaahdo laba magaalo jarmalka ugu saameyn badan magaalada frankfurt iyo magaalada kaasal la yidhaahdo oo anigu weli baan ka tirsanahay ciidanka kaasal hadda jeer hawlaha ka wada kaasal markaan joogana weliba ka tirsanay kolley dadka kubadda ciyaaraha garanaya kaasal markaan joogo toban macakirta baan qaataa taasina wata haddaba anigoo halkaa ka yimi oo kaasal xertaa kaasal ka mida inaan axmed hawsha kala soo qayb galo axmed waxaa u arkay shaksi ka shaqayn kara gudnimada jaaliyadda reer somaliland ee jarmalka ku nool wuxuu muujiyey bisay badan intaan halkan iman qolada kaasal iyo dad badan buu soo casuumay dad badan uu la hadlay wadahadal iyo gogol buu sameeyey in khilaafaad kala hadlay axmed waxaan u ballan qaadayaa halkan inaan imaadana waxa weeye isu soo dhaweynta iyo kala shaqaynteeda waxaan u ballan qaadayaa axmed inaanu samayn doono madal lagu wada hadlo wixii khilaafaad la xaliyo axmedna si wacan ina hawsha uga garab galo taasina wata waxaa kaloo jirta arrin halkan halkan qolyadii horreeyey ka dhawaajiyeen jaaliyaddu shaqadeedu ma aha mas-uul inaynu soo dhaweyn dalkii ka yimi shaqadeeda ma aha aynu soo dhaweyna mas-uulka wax loo baahayo oo madax dalka ka tiri laakiin taasoo walayna ka shaqayna maaha maalinta ay dhihi mayna inay xafladda ka shaqaynana noqonana ma aha
hadda dhan aynu joogno reer somaliland aanu marayo sida sheegay baa ku geeriyooday dalka jarmalka frankfurt weliba isla magaalada amtira sida waxaa sheegay inaynu ka shaqayno arrinkaasoo ninka aaskiisii hawshiisii oo dhinacaas